السلام عليكم asxaabteyda qaaliga dhamaantiin kusoo dhawaada ukimi saacad dhamaantiga xusubtiina kusoo dhawaada family subscribe saar gambaleelkan furo video walbaan soo gelisay dhaqsi ku soo gaaraan soo asxaabteyda qaaliga maanta ayaan sameynaa bariis biryani aad u macaan badan oo dhamaantiin ka faa'iidi doontiin cafarka sameysan kartiin asxaabta maanta waa xusub kusoo dhawaada channelka ukimi saacad channel labaad ayaan leeyahay oo qurxinta daawil arkin magaciisa waa kee kusoo dhawo linkiisa waxaan soo gelinaa videogan hadda soo gelinaa comment ka dhexdeeda linkiga pinaan saaraya linkaas markaa raacdid waxay ku geenaa channelkayga qurxinta sidaas oo soo booq kartaa subscribe ya saari kartaa marka asxaabta dhaxdiintisana sidaan u sameynaa bariiskan aad u macaan badan sidaas la socda dhamaantiin asxaabta daawasho wacan waxaa igu jira laxabo ukuntan biyo ayaan kusoo kariyay biseel waa markad waxaan ku shubay fariisul qiyaasiiso hurud kadibna waxaan ku darsaday fariisul qiyaasiiso oo basbaas gaduud and then fariisul qiyaasiiso oo garam masala intaas markaan isku dardarada si fiican aan u qasaa ukuntana waxaa loo baahan yahay wax yar jaale inuu noqdo marka sidaas ayaan isku qasayaa and then marka aan qaso waxaan sameynayaa mindi ayaan soo qaadayaa mindiga markaa soo qaadid waxaad sameynaysaa sidaas aad ugu durduraysaa ukunta because hadhow markaa saliida oo aan ku dubeyno ukuntaada ma dilaacayo sidaas darteed marka ukunta waxaad sameynaysaa intaa oo adduunka hore wax yar sidaas ayaan ugu jeexayaa mindiga oo aragteen ukunteena diyaar waa marka taawada ayaan dabka saaray kadibna hal qaadir oo saliid ayaan ku shubay wax yar saliid oo loo baahan yahay soo waxaan sameynaa ukuntii aan soo qasay ayaan ku shubay saliid dhexdeeda kadibna waan sii dubayaa wax yar ayaan dubayaa ukunta waan ka saarayna zaid mal rabo inaa u dubtid soo aragteen qiyaastaas sidaas ayaa rabaa ukunta dubitaankiisa marka ukunteena diyaar waa asxaabta waan ka saaray waa aragteen ukunta soo ukunta markaa wax yar sidaas brown noqdo diyaar waa because ukunta already biyo ayaan kusoo karinay karis kale ma u baahan soo waxaan rabnaa wax yar inaan dubo marka waxaan sameeyay daawada ayaan dabka saaray kadibna wax yar oo saliid qiyaasay ayaan ku shubay saliid waxaa loo baahan wax yar soo qiyaasay kadibna saxankan waxaa igu jira heel qalfo iyo dhaga yaro waa aan ku shubay kadibna saxanka kale waxaa igu jira bay leaf caleen carfiso waa iyo nus qaado waxaan ku shubay xawaaji dhudhub ama kabsar dhudhub sida u taqantiin marka wax yar sidaas ay isku dhaxshiilaya kadibna waxaan ku darayaa 3 xabo basal aan soo jarjar waa basashane qiyaas ayuu ahaa zaid ma weyn zaid ma yar dhexdhexaad marka 3 xabo basal aan soo jarjaray asxaabta marka basashaas waan shiilayaa light ayaa loo baahan light brown inaa ka dhigtid marka basashaad dubaysid kadib waxaan ku darsanaa 2 qaado tuun sanjabiil aan soo shiiday waa qaadada yar waa midkan isticmaala 2 qaado ayaan ku shubay and then si fiican aan ugu gadgadinayaa marka sidaas aan sameeyay hada waxaan ku darsanayaa wax yar oo waxaan ku daray basbaas cagaar waa aragteen basbaas cagaar ka qasab ma inaan ku dartid hadaa rabtid iska dhaafaysa laakiin hadaa basbaas jeceshid aad ayuu u macaynaya biryaniga marka lagu kariyo marka hada waxaan sameeyay marka basbaaska waan ku shubay hada waxaan soo qaaday xawaajiyaasha soo hada waxaan ku shubay hal qaado xawaaji oo garam masala hal qaado waxaan ku shubay basbaaska gaduudka midka barbarka ayaan ku shubay kadibna waxaan ku korshubayaa hal qaado oo biryani masala xawaajiyaasha oo biryaniga lagu darsado guriga ayaan ka sameeyay waxaan ku darsanayaa nus qaado waxaan ku darayaa filfil madow mid kala soo shiiday barbarka and then waxaan ku darsanaa hal qaadir oo hurud ayaan ku daray marka intaas waxaan markaan isku daro si fiican aan isku dhaxshiilaya waxyaabahaas dhan xawaajiyaasha marka si fiican markaan isku dhaxshiilay hada waxaan ku darsanayaa 2 xabo yaanyo waa yaanyadan si yariirsan soo jarjaray si dhaqsi u bislaadaan marka 2 xabo yaanyo ayaan ku daray hada wax badan sameeysanaysan asxaabta yaanyada u badanaysin xawaajiyaasha u badanaysin waxyaabaha aan ku daray u badanaysin kadib waxaan ku darsanayaa hal qaado xawaaji burbur mid kala soo shiiday barbarka kaas ayaan ku daray wax yar ayaan ku qasayaa marka maraqa sidaan ayaa loo baahan yahay inaa u karisid kadib waxaan ku darsanayaa cusbo ayaan ku darayaa cusbo qiyaasaad ku darsan intii adiga afkaa ku qaadaysay dhadhankaaga ayaa ku xiran yahay marka aniga qiyaasteeda ayaan ku daray soo cusbahaas marka aan ku qaso kadibna waxaan sameynaa waan siin dhaafayaa waan karinayaa 4 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo dab hoose ayaan ku karinayaa kadibna waa idin sii doonaa soo waxaan sameynaa stove-ka waan u gaabinayaa because waxaan ku darayaa caano garoorkana nus bakeer qiyaasiis waa marka maraqa asigoo zaid u karkaraya caano garoorkaad ku darsid caano garoorka dhan uu kala go'aya sidaas mal rabo marka inta caano garoorkaad ku daray stove-ka zaid u gaabi kadib ku dar and then caanaha garoorka markaa ku dartid hadhow liisha ayuu ku noqonaya wax ma kala go'ayo laakiin hadaad ku dartid
caanaha asigoo oo maraqa zaaid u karkaraayo hadhow caanahaas intuu kala go-ayo kuuskuus ayuu kuu noqonayo dhadhankiisana aad ayuu u xumaanaya marka sidaas ma la rabo. Hadda marka aan ku daro caanaha wax yariis hal daqiiqo oo kaleete ama 2 daqiiq sidaas ayaan isku kariyay kadibna hadda markuu diyaar noqdo waxayaan ku shubaa baradho waaye. Baradhahana saliid ayaan kusoo dubay first kabacdi ayaan ku darsanay because baradha already biseel waa markaa saliid aad ku dubtid baradhaha biseel ayuu noqonayaa. Hadda just waxayaan u baahanahay maraqa inaan ku qaso waa aragteen meeshaas ayaan ku shubay maraqaasiyada ayaan ku qasay waxayaan ku daray ukuntii aan soo dubay marka ukuntaasiyada ayaan ku daray and then waxayaan sameynaa maraqaasiyada biryaaniga si fiican aan ugu qasay ukunta si xawaajiyaasha dhadhanka yaanyada dhan si fiican u galaan ukunta dhexdeeda. Kadib hadda waxayaan ku daray hal qaad oo basal aan soo dubay waaye basasha waa aragteen brownkaas ayaan ka dhigay waan soo dubay marka hal qaad qiyaasiis ayaan ku daray basal badan aan ku daray because basashaas hadda bariskeen u celinayna and then hadda kabsar caleen ayaan ku daray wax yar oo kabsar caleen aan soo jarjaray ayaan ku korshay kabsar caleenka laazim ma zaaid ayuu carfayaa maraqa kabsar caleenka lagu daro laakiin asxaab kale ayaa jiraan oo kabsar caleenka jecleenin hadaa kabsar caleen jecleenin qasab ma waa iska dhaafi kartaa. Hadda wax yariis waxayaan ku miirayaa half oo liin waaye liintaas ayaan ku miirayaa si maraqa dhadhan macaan badan u yeeshto marka hadda maraqaasiyati liintaas markaan ku daray si fiican aan isku qasayaa. Maraqina asxaabta diyaar waa si fiican ayuu u karay waxyaabaha aan ku karinayo waa aragteen baradha biseel ayuu ahay ukunta biseel ayuu ahay just yaanyada xawaajiyaasha aan karinayo. Hadda dabool ayaan saarayaa inta bariiska aan ka karinayo dab hoos ayaan ku karinayaa maraqaasiyati marka bariiskeena ayaan karsanaynaa. Asxaabta bariiska waxayaan sameeyay biyo ayaan sufriyada ku shubay kadibna biyaha dabka ayaan saaray kadibna waxayaan ku daray wax yar oo xawaaji dhudhub ama kabsar dhudhub sida u taqaantiin caleenta xarfisaha ah heel ayaan ku darsaday cusbo ayaan ku daray wax yar oo saliid qiyaas yar ayaan ku darsanaya hal qaadir qiyaasiis and then half oo liin ayaan ku daray liinta marka lagu daro iyo saliidana marka lagu daro bariiska isku dhagdhagayo sidaas darteed marka liintaas ayaan ugu daray daarabtid bariis furfur inuu ku noqdo sidaan u karso. Markaad waxayaan sugayaa inuu karkaro markuu karkaro kadibna waxayaan ku darsanayaa bariis inta bariis aan karinayo maanta nus kiilo bariis waaye marka bariiska waan soo dhaqay ilaa 10 daqiiqo ayaan qasay 10 daqiiqo kadibna bariiska waan karinayaa. Hadda waan sii dhaafayaa bariiska 85% ilaa 90% ayaan karinayaa kul karinin just waxyaa loo baahan wax yariis meel dheer markuu ceerin yahay inaa bariiskaas ka saartid. Hadda asxaabta bariiska waan sii dhaafay waan sii karinayaa waa aragteen 90 ilaa 85% ayaa la rabaa bariiska inaad karisin. Hadda bariiskeena diyaar waa marka biyahaas ayaan ka miirayaa biyaha marka aan ka miiro kadibna waxayaan sameynayaa saxankaaseti ayaan ku shubayaa bariiska marka aad miirtid kadibna soo qaad saxan ku shub saxankii adiga ku yaal saxan weyn haduu ku yaal saxanka weyn ku shub muhiimka waxa waa bariiska markaa karisid aad miirtid intaaba samiirka aad ku dhaafi lahayd uu jajabi lahaa bariiska just sidaan ayaa sameynaysaa saxankaaseta ayaa ku shubaysaa kadibna bariiskana qaleel ayuu ku noqonayaa laal xabo ayuu ku noqonayaa furfur marka sidaas ayaan sameynaa kadib bariiska dhan saxanka sidaas ayaan ugu shubay hadda diyaar waa bariiskeena marka sidaan u diyaarsanaa maanta idin tusnaa biryaaniga sidaan u sharxayo. Asxaabta waa aragteen bariiskani diyaar ah waxayaan u soo laabtay maraqii dabka ii saarnay dab hoose ayaan ku kariyay maraqa marka hadda maraqeena diyaar waaye bariiskani diyaar waa hadda waxaan idin tusinayaa sidaan u sameynayo biryaaniga sidaan u sharxayo hadda sidaas ayaan idin tusinayaa maraqii bariiska diyaar waaye. Hadda waxaan sameynayaa maraqaaseti saxan ayaan ku shubaa because maraqa dhan miribi inaa oo bariiska aan ku korshubo. Hadda waxaan sameynayaa maraqaaseti waan ka saarayaa just wax yariis maraqa ayaan ku dhaafayaa taawada ama sufriyada dhexdeeda kadibna hadda waxaan sameynayaa bariiska ayaan ku shubayaa marka just waxaa loo baahan yahay hoos sufriyada inaan ku dhaafto just wax yariis oo maraqa waa aragteen qiyaasta aan ku dhaafay intaas ayaa loo baahan yahay maraqa hoos inaa ku dhaaftid just waxaa loo baahan yahay wax yariis oo maraqa inaa ku dhaaftid sufriyada wax badan ma loo baahan kadibna waxaan soo qaaday bariiskii aan soo miiray marka bariiskaas ayaan ku shubayaa. Asxaabta bariiska waa aragteen siduu daadana xabad xabad waa marka bariiska markaa miirtid kadibna baasta miirka ka miir saxan ku shub saxanka markaa ku shubtay sidaan qaleel ayuu noqonayaa furfur ayuu ku noqonayaa bariiska insha Allah baroweya. Markaad waxaan soo qaaday maraqii oo biryaaniga ayaan sidaas ugu korshubayaa bariiska dhexdeeda intaas maraq ayaan ku korshubay meesha aragteen marka maraqa dhan ma aha wax kale waan sii dhimay because qayb ayaan u sameynaynaa. Hadda marka sidaas aan ugu shubo wax yariis qaadadaas ayaan ku tutusinayaa
sidaas samee mar walba markaa maraqad ku shubtid. Bariiska dhan waxaa loo baahan yahay inuu maraqa si fiican u gaaro. kadibna waxayaan ku korshabayaa wax yariis oo yaanyo aan soo jarjaro. waa yaanyadana zaaid iyo yariis ayaan ugu dhigay, yaanyo waaweyn ma loo baahan, si yariis sida qiyaasta basal sambuusi oo kale ayaan ka dhigay. kadibna haddana waxayaan soo qaaday bariiskii kale ayaan ku kor daboolayaa. marka sidaas ayaan sameynayaa, qayb oo kala nooc ayaan sameynayaa. marka sidaas la socda, fiirsada videoga si aad u fahantiin sidaan u sameynayo. kadib hadda waxayaan ku korshabayaa basal. basasha waan soo duway, marka basashaas ayaan ku shubayaa. basashana saliid ayaan ku shiilay, kadib ayaan ku korshabayaa, waa aragteen. hadda waxayaan sameynayaa basasha markaan ku shubo wax yariis oo kabsar caleen aan soo jarjaray ayaan sidaas korkiisa ugu shubay. yaanyo oo yaryariis aan usoo jarjaray sidaas ayaan ugu korshabay. kadibna waxayaan soo qaaday loos, waa wax yar oo loos looskaaseti ayaan ku shubaya, just wax yar ayaa loo baahan yahay, loos badan ma loo baahan. kadibna waxayaan soo qaaday maraqii ayaan ku korshabay. asxaabta waa aragteen maraqa oo biryaaniga qayb walba ayaan ku shubayaa. marka sidaas ayaa loo baahan yahay. sidaa markaa sameysid biryaaniga zaaid ayuu u macaan badan yahay, special biryaaniga ukunta laga sameeyo zaaid ayuu u macaan badan yahay. kadibna waa aragteen qaadada ayaan ku totoosiyay biryaaniga maraqiis markaan ku shubay. sidaas markaan sameeyay, hadda qaybtii labaadna diyaar waaye. hadda waxayaan sameynayaa marka bariis ayaan soo qaadaya, haddana bariiskaas sidaas ayaa korkiisa ugu shubaya. bariiskan asxaabta furfur maasha allah, sidaas ayuu ku macaan badan yahay bariiska biryaaniga furfur inuu noqdo. marka hal xabo markuu kuu noqdo biryaaniga markaa karisid maasha allah, biryaani macaan badan ayuu kuu noqonaya bariiska. hadda waa aragteen marka bariiskaas sidaas ayaan ugu shubaya, just gacmaha ayaan kusoo qaadaya, waa aragteen sidaas ayuu u daadaadanaya. marka qaybtii intii ugu dambeysay waaye, sidaas korkiisa aan ugu shubay. asxaabta marka sidaa markaan sameeyo bariiska wax yariis qaadadaas ayaan ku totoosinaya. kadib waxayaan sameynayaa wax yariis oo yaanyo aan si yaryariis aan usoo jarjaray korkiisa ayaan sidaas ugu shubayaa. hadda marka sidaas yaanyada markaan ugu korshubay, haddana waxayaan soo qaaday 2 xabo ukun. waa 2 xabo ukun ugu dambeysay waaye. marka 2daas xabo ukun ayaan sidaas u kor saarayaa. 6 xabo ukun ay ahay, dhabaqa 2 xabo ukun, dhabaqa 2 xabo ukun, dhabaqa 3aadna 2 xabo ukun. kadibna wax yariis oo basal ayaan sidaas korkiisa ugu shubay. basasha markaan ku shuban, haddana waxayaan sameynayaa loos. waa looskan waa aragteen noocan isticmaalayo, looskaas ayuu ku macaan badan yahay bariiska markaa lagu shubo. hadda marka looska markaan korshubo, haddana waxayaan ku korshubanayaa wax yariis oo kabsar caleen. kabsar caleenkana zaaid ayuu carfinaya bariiska markaa korkiisa sidaan loogu shubo. wax yariis waxayaan soo qaado garam masaale korkiisa sidaas ayaan ugu shubay. kadibna waxayaan soo qaaday wax yariis oo zacfaraan biyo ayaan ku qasay. marka zacfaraankaas ayaan sidaas ugu wareejinaya bariiska dhexdeeda, kalar qurux badan ayuu u yeelaya zacfaraanka markaa lagu shubo. kadib waxayaan sameynayaa 2 qaado subag ayaan soo qaaday. subaga midka saafiga waaye, 2 qaado subag ayaan ku shubayaa. subaga markaa lagu shubo bariiska zaaid ayuu carfaya, marka adinkana barooway insha allah. asxaabta waxayaan sameynayaa marka bariiska waxayaan ku daboolaya xaanshadaas silbaha ayaan ku daboolaya. kadibna waxayaan sameynayaa dabool ayaan saaraya. daboolka markaan saaro dabka zaaid ayaan u gaabinaya, dab hoose ayaan ku karinaya ilaa 15 daqiiqo waan ku hurinaya. 15 daqiiqo kadibna waa arki doontiin bariiskeena siduu noqonayo. asxaabta hadda 15 daqiiqo ayaa laga joogaa, bariiskeena diyaar waaye. dab hoose ayaan kusoo huuriyay, waa aragteen dabka zaaid ayaan u gaabiyay ilaa 15 daqiiqo kadibna bariiskeen maasha allah complete ready waaye. kusoo dhawaada dhammaantiina. maanta sidaan u sameeyay bariiskan biryaaniga, I hope dhammaantiin inaa ka faa'iideen videogan. hadaa ka heshiina sidaan u kariyay maanta bariiska biryaaniga fududka. marka videogan like saara, sii share gareysii walaalaaga asxaabtaada warkaan ay ka faa'iidaan. dhammaantiga cusubtiina kusoo dhawaada familka, subscribe saar, subscribe-ka dhinaciisana gambaleel yariis ayuu ka yaalaa. gambaleelkaas furtaa marwal video aan soo galaysay dhaqsiinay soo gaaraan. asxaabta waa kay biryaani aad iyo aad u fudud waa, hilib ku yaalin, digaag ku yaalin, just ukun ayaa soo gadi kartaa. kadibna sidaan ayaa u karsan kartaa bariiska biryaaniga ukunta laga sameeyan zaaid ayuu macaan badan yahay. insha allah markaa barooweysiin aad arki doontiin macaankiisii siduu dhadhamaayo. marka I hope insha allah adinkana inaa ka faa'iideen videogan. sii share gareeya, sii walaalihiin asxaabtiin arkaan ay kale ay ka faa'iidaan videogan. marka waa kay asxaabta bariiska waa aragteen siduu noqdo bariis furfur aad iyo aad u fudud oo macaan badan uu noqonaya. asxaabteeda qaaliga marka bariiskeeni diyaar waaye, sidaas ayaan u kariyay. kusoo dhawaada dhammaantiina. asxaabta videogeena maanta bariiska biryaaniga
intaas ayuu ku egyahay. Until then insha Allah next video aan ismaqli doonaa with new recipe. Dhammaantiina kheyr badan ayaan ii dhaafay dunia meel walba ka joogtaan. And as always daawadigu xasuusta. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.